saaka aroortii hore dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawsleyda ah oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu ka qarxay deegaan lagu magacaabo Cadu Gurey oo hoos yimaada magaalada Bulaburde ee gobolka Hiiraan si gaar ah ugu dhow aagga loo yaqaan Beerayabaal. dagaalkaas waxa soo bilowday 10 saac oo habeenimo waxaana la sheegay inuu soo gaaray ilaa saakay 7 subaxnimo waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa oo deegaankaasi ka dhacay. halkaasina waxaa shalay ka qudbeeyay oo ku sugnaa taliyaha adnaba sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulushe madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiirshabelle Yuusuf Axmed Taageer Dabageed iyo sidoo kale ganacsadaha qaadka ka taajiray ee galmudug hadda murashaxa u ah ee lagu magacaabo Liibaan Shuluq. wararku waxay tilmaamayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof oo isugu jira labadii dhinac halkaas ku dagaalamay. saraakiil kuwa dawladda ka tirsan iyo maamulka Hiirshabelle oo aan la xiriirnay aagaasina ka agdhow qaarkoodna ay joogaan waxay sheegeen inay ka dhinteen 10 qof xaggooda dhinaca Al-Shabaabna ay dileen ilaa 36 qof. laakiin waxay xubno kale oo kamid ah isla saraakiisha ammaanku ay sheegeen in labada dhinacba uu jiro khasaare xoog loo soo gaaray. kooxda Al-Shabaab waxay qabsadeen gaari nooca dagaalka ah laakiin dagaalka oo xoogeystay iyo dhowr jiho oo ay ka galeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib ayay sheegeen saraakiishu in uga soo furteen gaarigaasi khasaare xoog lehna ay kooxdu ay gaarsiiyeen. saraakiishii ku sugneed Salim halkaasi ay hadalka ka jeediyay oo uu ka mid yahay taliyaha adnaba sugidda sirdoonka qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiirshabelle iyo ninka qaadka ka taajiray ee la yiraahdo Liibaan Shuluq waxay dhammaantoodba halkaasi u tageen abaabulka dagaalka iyo isgarabsiinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa galmudug ee halkaas ku sugnaa. ujeedaduna waxay ahayd in dagaal saf ah lagu qaado kooxda Al-Shabaab oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kala jooga deegaanada galmudug iyo Hiirshabelle iyo ciidamada deegaanka ee labadaas deegaan ku kala sugan. kooxda Al-Shabaab waxay muddooyinkii la soo dhaafay waday dagaal iyo sidoo kale abaabul iyo iyadoo dhaqaaqa xoog leh ka sameynaysa meelo kamid ah deegaanada Hiirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe oo deegaanada qaar dhowr jeer ay soo galeen markii dambe ay ciidamadu ay ka saareen. madaxda halkaasi joogta hadda waxay ku sugan yihiin halka loo yaqaan Moqokori oo ah degmo ka tirsan Hiirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waayna ka soo tageen halkii uu dagaal ka socday. xala ayaa la sheegay inaysan ku baryinba oo halkaas ay joogeen ciidamada dawladda oo kaliya ah. weli ma jiro war rasmi ah oo dhinaca dawladda ka soo baxay laakiin dagaalkan waxa Al-Shabaab uu ka mid yahay dagaalo maalmihi la soo dhaafay iyo weerar ay ku qaadayeen fariisamaha ciidamada dawladda iyo kuwa macawsleyda iyada oo ujeedadoodu ay tahay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa gobolka ka socda. dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa sidaan oo kale saacadii la soo dhaafay waxay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Cadaan Lixi oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. dagaal qaraar oo halkaas shalay ka dhacayna ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dib ula wareegay deegaankaasi. welina wuxuu ku jiraa gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawsleyda. waxaa jira deegaano kale oo weli la iska hor fadhiyo waxaana la oran karaa Hiirshabelle waxaa ka furan ugu yaraan 10 furan dagaal oo ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ay iska hor fadhiyaan kuwaas oo sidoo kale meelaha qaar ee ciidamada kuwa deegaanka ay qayb ka yihiin. Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Al-Shabaab waxay saareen culays badan muddooyinkan lamana oga ujeedada ka dambeysa. waxay dadka saraakiisha ah ee arrimaha ammaanka wax ka yaqaana iyo kuwa deegaanka ay ku sheegayaan in qiyaastii 3,000 ilaa 4,000 oo dagaalamayaal Al-Shabaab ah in halkaas lagu soo daayay oo muddooyinkaaba ay magaalooyin iyo degmooyinba maalinba ay culays saarayeen. waxaana dad badan is weydiinayaan sababta soo laba kacleynta Al-Shabaab iyo waxa ay xambaarsan yihiin. wixii warar ay ku soo kordha xaaladda dhaqaaqada ciidan ee dalka ka socda waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe haddii Allah uu dilo idmo. adina aragtidaada qaybtoos faallada nagu reeb muuqaalkana si shargaray haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus waxay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa macawsleyda waxaana wararku tilmaamayeen kooxda halkaas lagu jibiyay. halka ay weerareen waxaa lagu magacaabaa deegaanka Cadu Gurey waxaana hoos yimaadaa degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan wuxuu si gaar ah uga dhow yahay halka caanka ah loo yaqaan Beerayabaal. dagaal bilowday saakay 10 saac oo habeenimo ayaa soo gaaray ilaa 7 subaxnimo ee maanta waxaana la sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa ee halkaas ka dhacay. deegaanka la weeraray waxaa ku sugnaa taliyaha adnaba sugidda sirdoonka qaranka maalintii shalay. sidoo kale waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hiirshabelle Yuusuf Axmed Taageer Dabageed iyo sidoo kale ganacsadaha qaadka ka taajiray ee Liibaan Shuluq sidoo kalena ah murashax madaxweyne oo galmudug ah. inkastoo xilliga weerarku u dhacay deegaankaasi ku sugneen oo ay joogaan degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan haddana
maalintii shalaheed ayaa halkaasi khudbad ka jeediyeen oo ciidamadu ay kula hadleen waxaana halkaas ku sugan ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira ciidamo gobolka Hiiraan ah oo macawisley ah ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa galmudug laga keenay ujeedadana waxa weeye sidii dagaal mid ah ay Hirshabeelle iyo galmudug u gali lahaayeen oo kooxda al-shabaab ay ula dagaalami lahaayeen oo dhaqaaq gobolkaasi ka wada waxay idin la wadaagayaa 4 sabab oo la aaminsan yahay in al-shabaab ay dib u soo laba kacleentooda sabab u ahayd maadaama muddooyinkan culays badan ay soo saareen meelaha qaar oo gobolka Shabeellada Dhexe ugu horeeyana ay deegaana dib ugu laabanayeen ama ay weerar ka geysanayeen arrinta koowaad marka aan la xiriirnay dadka sirdoonka ah arrimaha ammaanka wax ka yaqaana xoogaalka ah waxay sheegeen in al-shabaab ay doonayaan inay ka hortagaan abaabul dagaal oo ay dawladdu waday oo ay rabtay in ay isugu furto Balcad iyo Jowhar oo halkaasi muddo sanado ah aan la marin tan iyo 2016 ama 2017 ilaa haddaba aysan halkaasi al-shabaab laga dhaxmaraynin oo aan Jowhar iyo Balcad gaadiidku soo gudbi karin dhaqaaqaas ay dawladdu halkaasi ka waday oo taliyo odawa u tagay Jowhar oo isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle u soo bandhigeen ciidamo iyo gaadiid dagaal oo halkan loogu soo diray ayaa waxay wararku sheegayaan in kooxda al-shabaab ay rabto inay ka hortagto sababtoo ah haddii halkaasi la kala jaro waxa kala go'i doona al-shabaab waxa go'i doona saadkii iyo gurmadkii iyo dhammaan wixii kale ee abaabula ee halkaasi isaga gudbin jireen waa qodobka koowaad oo ragga arrimaha ammaanka wax ka yaqaana ay ku macneynayaan abaabulkan iyo soo laba kacleynta al-shabaab oo waxay rabaan inay deegaanada kale pressure ama culays saaraan si halkan culayska uga haro oo kadibna ay caadi u soo laabato qolo kale waxay leeyihiin oo qodobka labaad ah waxa ka dambeeya dawladaha howlgalka ATMIS ee dhamaaday laga reebay ama ciidamadu la yareeyay ee raba in hadda ciidan xoog laga siiyo howlgalka cusub ee bilaabanaya AUSM oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sabtidii baarlamaanka ka hor sheegay in bilooyinka soo aadan oo si rasmi u bilaaban doono dawladahaas oo qaarkood al-shabaab ku xiran cidii ay doonaan ha u dhaxmaraane ayaa waxaa la warinayaa inay adduunyadu rabaan inay tusiyaan inaan laga maarmin ciidamadooda tirada ciidan ee la siiyana aysan munaasib ahayn sidaas darteedna ay rabaan in loo qoondeeyo ciidamo kale oo intii ka badan howlgalkiina uu sii jiro maadaama halkaas ay ka helaan dhaqaale badan ciidamadoodiina ay ka joogaan oo mushaar fiican lagu siiyo Soomaaliyana ay wali faragelin siyaasadeed iyo gudaheeda involved uga ahaan karaan ama ay ku dhaxmilaan karaan qolo kale oo saddexaad ayaa waxay ku macnaysay dawladda Masar oo rabta inay Soomaaliya ciidamo keento maalmaha soo aada waxa ka imaan doono saraakiil meelaha ay tagi doonaan waxa kamid ah Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo deegaano kale oo dhulka Soomaalida kamid ah oo gobolada kale kamid ah dawladaha qaar oo Itoobiya ugu horeyso oo diidan inay Masar timaado inay ayagana rabaan arrintaas inay weeqaan oo ay meesha u ekeysiyaan dal ammaan ahayn al-shabaab ku xoogan yihiin dhibaato xoog la geysan karaan dawladda Soomaaliya pressure ku saarayaan si looga baaqsado inay Masar halkan ciidamo keento ama saraakiil ka socoto Masar ay yimaadaan waa xubno kale oo saraakiisha ammaanka kamid ah ayaa warkan ayagana noo sheegay qodobka afraad ee ugu dambeeyo waxa ay leeyihiin dadka sirdoonka ah ama arrimaha ciidamada la fagura al-shabaab waxa ay gudbinayaan saanad ciidan waxay gudbinayaan maleeshiyaad badan oo tababar uga soo baxay oo deegaanada jubbada hoose ku sugnaa si ay u gudbiyaan ayaa waxa ay wararku tilmaamayaan inay buunto ka sameysteen meel u dhow degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe sidaas darteedna ay dawladdu cadaadis iyo culays ay saarayaan markii jihooyinkaas oo ay furmaha ka fureen lagu mashquulana ay doonayso kooxdu inay saanad ciidan iyo dagaalamayaal u gudbaan marka ugu dambeysana ay dib ugu laaban doonaan deegaanadooda laakiin haddii laabtaan haddii ay joogaanba waa halis weyn oo al-shabaab oo dalka Soomaaliya ka jirta afartaasi qodob ayaa la rumaysan yahay inay al-shabaab sabab u tahay soo laba kacleentooda iyo dhaqaaqa ciidan oo ay ka bilaabeen deegaano kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo guud ahaan gobolka Hiiraan meelo kamid ah guud ahaan dalka Soomaaliya laakiin waxa aan shaki ku jirin in qiyaastii ugu yaraan 4,000 oo dagaalamo oo al-shabaab in lagu soo daayay deegaanada hadda furmaha ka jiraan oo colaaduhu ka jiraan oo kooxdu ay dhaqaaqa ka wado oo ay maalinba meel weerarayaan oo marna deegaan ku dhufanayaan iyaga oo raba mashquulin iyo cabsi gelin iyo sidoo kale inay dadku dareensiyaan awoodii al-shabaab wali inay joogto laakiin xoogga dalka Soomaaliyeed xubno kamid oo la xiriirna waxay sheegayaan inay wadaan diyaar garow arrintaana la soo afjari doono maalmaha iyo toddobaadyada soo aadan marqaatina waxay u qabsadeen inaysan al-shabaab ahayn koox dagaalami karta wixii ka dhacay Ceel Ali Axmed iyo deegaanadii ay soo galeen oo iyadoo aan dagaal dhicin markii ciidamadu u jeesteen bay isaga baxeen haddana kuba kalaba ay ka baxeen oo ugu dambeysay cadaalixi oo shalay markii ay daqiiqada qabsadeen ciidanka macawisleyda ay dib uga saareen qisooyinkaas ama sheekooyinkaas jira
laakiin xaqiiqada waa la ogaan doonaa marka ugu dambaysa way soo bixi doontaa adina aragtidaada qaybta hoose faallada noo reeb muuqaalkana si shargaray haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biiri aad iyo aad aa mahadsantaha